ورنتي وما دعلنا وزير الظاهر يعني سيدو أفضل ففتري إن أنت وجهن ما أنت حضر قينا heshiiskii aan la galnay dowladda 25 August 2025 ee ahaa saddexda qodob oo ka tirsanaa cutubka afraad ee annaga aan u arkaynay parliamentary systemkii guuritaankeedii khatar waxay u keeni kartaa dalka in la duro yacni sharciyadda siyaasadeed ee lagu soo dooranayo madaxweyne ama ra'iisul wasaare uu kursiga ku weynayo ama xisbiyo loo xirayo yacni muddo hadda badan 3 xisbi kaliya waxaan arrin arrimahaas inay khatar ahaayeen runtii annagoo madasha markaas wada jir ah ayaan doodaas la galnay xukuumadda iyo dowladda waa adigu 5 fadhi 5 shir aan galnay iyo ka badan waxaan markii dambe ku heshiinay in qodob badan saas yacni aan isku waafaqnay annaga oo markaas afar ahayn ayaa qodobadaas aakhirkii dowladda la seexanay waana waxaan is leeyahay runtii waxay u ahayd dig dowladnimada soomaaliyeed inaysan gelin shaki iyo wareer yani habka madaxweynaha loo dooranayo habka uu saanada ku weynayo wasaaraha ama xisbiyada sida habka ay ku soo gelayaan iyo sharciyadooda marka saddexdaas qodob waa jecleen runtii annaga in maadaama heshiiskan uu ahaa 25 August waa jecleen hadda ku horow in la keeno baarlamaanka oo yacni waqti hore la keeno laakiin maanta qadarka alla ka dhigay ayadan maaragtay waxaan rabnaa dowladda inaan uga mahad celino runtii inay yacni wixii lagu heshiiyey ku dhaqantay oo ay keentay dad badan baa waagii shaki geliyey maadaama ay daahday heshiiskaas in la waafajiyo cutubka afraad dad baa shaki geliyey inaanan marna aysan maaragtay waxba laga soo qaadin laakiin maadaama akhriskii maanta ugu horreysay ay ahayd saddexdaas qodob ee cutubka afraad ka tirsanaa waa bogaadinaynaa runtii dowladda iyo guddiyadii ka soo shaqeeyey waafajiyey heshiiskii 25 August maanta waxa dhiman waxa weeye waa arrimaha doorashooyinka iyo hadda shirarkan nagu soo wajahan ee madasha mustaqbalka iyo dowladda yeelanayaan ayadana waxaan rajaynaynaa runtii in is-afgarad uu ka soo baxo dalka sideeda waqti iska xasaasiyaan maraynaa oo hadda gabagabo iska tahay waxaan rajaynaynaa in si miyir qaba iyo wada hadal iyo isku furnaan lagu wajaho inta harsan oo is-afgaradna ka yimaado ummadda soomaaliyeed sideedaba hadda caalamku siyaasadan isbedelaya waxay runtii khatar weyn ku tahay dalalka kan taagta yar maanta adduunkii wuxuu u shaqeynayaa waa nin xoog leh nin xoolo leh waxaan rajaynaynaa inaan uga baxno midnimo dadkeenna wax allaa wixii midaynaya ee dadka isku keenaya inaan isla qaadno maanta waxa kaliya gaashaanka kaliya aan haysanaa ee aan ugu gudbi karnaa waqtiga khatarta ah waa sideedaba inaan midaysannahay kana shaqaynaynaa wixii ummaddan isku keeni kara kana fogaanaa wixii na kala irdayn kara marka runtii anigu waxaan rajaynayaa aan ku darayaa arrintan dalku iyadoo hadda siyaasaddii ay wax yar dee ka hadsan yihiin doorashooyinkii hadda laga wada hadlayo haddana abaaro ba-an ayaa dalkii ku dhuftay dowladda xukuumadda culamaa diinta ganacsatada ummadda soomaaliyeed in waxaa muhiima ay iska kaashadaan runtii in abaarahan laga hortago oo dee dad badan oo soomaaliyeed ayaa daafaha dalka yani ku dhibaataysan biyo la-aan haysaa in tanna loo gurmado sideedana dalkan waa qani oo biyo badan buu leeyahay in dalka dee sida dowladnimadu waa inay u adeegtaa dadka kana yani ugana adeegtaa wax allaa wixii dhibgo berita ka imaan kara in laga hortago oo hadda maaragtay waa rajaynayaa haddii annaga xasilooni siyaasadeed dalkan la helo oo laga gudbo arrintan hadda maanta aan loo fadhiya hadalkeeda iyo dalka kan inuu barwaaqo baraara gaaray dalka kan waa strategic dhaqaalo badan buu leeyahay qani weeye xoolo bad macdan shidaal wax kasta waa leeyahay bes waxa gadaal noo dhigay markasta waxa weeye siyaasaddan aan xasilooneyn ee mar kastaa soo noqnoqonaysa waxaa muhiima in laga gaaro
maarata muwaafaqo guud. wadahadaladii dheeraa aan la galnay saddexdaas qodob waxaan ku guuleysanay annaga iyo dowladda in wax ka bedel wax ku ool ah oo aan u wada aragnay markii dambe inay dan u tahay dalka iyo dadka in lagu sameeyo. runtiina maanta baarlamaanka in laga hor akhriyo oo baarlamaanka waajibkiisa ugu guud aadaan ugu faraxsannahay. waxaan u mahad celinaynaa dowladda Soomaaliya, mahad celinaynaa gaar ahaan madaxweynaha oo asaasi u ahaa arrinkan wada xaajoodka iyo maralnimadiisa. go'aankan waxaan ku gaarnay annagoo kali ah, Soomaali kaliya ah, xarunta aan wada leenahay madaxtooyada Soomaaliya aan ku wada hadalnay. go'aankaasaan isla gaarnay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قلب وناكسن bulshada Soomaaliya meel kasta ay joogaan waxaan idinku salaameynaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kalimadeena galabta ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid iyo aniga waxay ku saabsan tahay barnaamijka baarlamaanka loo gudbiyey oo ahaa qodobadii annaga iyo dowladda aan ku heshiinay bishii Agost dabayaaqadeeda kuna aadanaa sida meesha laga sheegayba 3 arrimood oo waaweyn oo qaranka Soomaaliya badbaado u ah, dalka iskoyntiisana xabag u ah, aysan ku kala foqin oo kala ahaa. midka koobaad hanaanka doorashada madaxweynaha oo wax ka bedelkii dastuurka lagu qoray in madaxweynaha toos loo soo dooranayo, iyo hanaanka ra-iisul wasaaraha xilka uu ku qabanayay halka hanaanka looga qaadayo, iyo arrimaha axsaabta. wadahadaladii dheeraa aan la galnay saddexdaas qodob waxaan ku guuleysanay annaga iyo dowladda in wax ka bedel wax ku ool ah oo aan u wada aragnay markii dambe inay dan u tahay dalka iyo dadka in lagu sameeyo. qodobka ugu horreeyay waxa uu ahaa oo lagu sameeyey wax ka bedelkaas hanaanka madaxweynaha loo doono inay noqoto labada aqal baarlamaanka labadiisa aqal oo madaxweynuhu uu hor yimaado cidda madaxweynaha Soomaaliya noqonaysa codka ugu badan cidii hesho ama codka dastuuriga qofkeena uu noqdo dalka madaxweyne uu ka noqdo. taasna waxay damaanad ka ahayd in madaxweynaha sharciyadiisa lagu murmin oo la isku khilaafin, waa xilkii ugu sarreeyay qaranka. qodobkana waa kii sida maanta aad wada dhageysateen ku aadanaa ra-iisul wasaaraha hanaanka uu xilka ku weyn karo oo ah in baarlamaanka loo maro markii dambe loo laabtay. marka hore waxay ahayd madaxweynuhu magacaabo kana qaado. marka arrimahaas oo idil waa siday u qornaayeen maahan si kale in loo qoro si loogu heshiiyo ah ayaan dowladda isla garanay wada hadal dheer kadib. runtiina maanta baarlamaanka in laga hor akhriyo oo baarlamaanka waajibkiisa ugu guud aadaan ugu faraxsannahay. waxaan u mahad celinaynaa dowladda Soomaaliya, mahad celinaynaa gaar ahaan madaxweynaha oo asaasi u ahaa arrinkan wada xaajoodka iyo maralnimadiisa. runtiina ka tanaasulay waxyaabo muddo ay soo wadeen. arrinkaas wuxuu muujinaa kaliya in Soomaaliya waxa ay doonto idil ay ku heli karto miiska wada hadalka ay ku heli karaan. arrimaha Soomaaliya miisku dhamaatay ay tahay, qadiyadaha dhimanna ay ku habboon yihiin in had iyo jeer dadka Soomaalida ay wada fadhiisaan oo ay iskaliyeysaan oo xarunta ay wada leeyihiin ay wada fadhiisaan. anagu go'aankan waxaan ku gaarnay annagoo kali ah, Soomaali kaliya ah,